بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داودياشينا qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel baad inaga daawanaysaan. waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isagu ku sugan booqasho gaaraaneedna ku jooga wadanka boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan magaalada Tajida ee wadanka boqortooyada Saudi Arabia. mudane marka ugu horeyso soo dhawo marka xigta bal waxaad inooga warbixisaa booqashadaada aad ku timid wadanka Saudi Arabia. bismillahir rahmaanir rahiim. aadi aad baad u mahadsantihiin. waxaan ka soo qayb galay shir banka islaamku halkan ku lahaa Islamic Development Bank. waxa weeye baan kulmiya muslimka oo dhan wadanada muslimka oo dhan ay qayb ka yihiin. Soomaaliyana xubin ka tahay. 450 wadan ayaa qayb ka ah oo wadanada muslimka ah iyo kuwa qaybood muslimka yihiin ee doortay inay ka soo qayb galaan. waxa weeye baan dhaqaale badan haya oo soo galo caawiyana wadanada muslimka ah. waa meel la isku yimaado sanad guurihiisii weeye 42aad ayaa shirkiisii loo yimi. waa shir wuxuu ahaa sanadla ah. shirka sanadlaha marka inaan ka soo qayb galayahay waana laga soo qayb galaa marka maanta aan joogo maadna ka soo qayb galay aniga iyo saaxiibkay Omar ayaa ka soo qayb galay. marka si fiican bay u dhacay shirarka. normally waxa laga hadlaa waxa weeyaan waxyaalo badan ayaa la ansixiyaa. waxyaalo badan baa la isla eegaa. marka shir dhowr cisho socda weeye waxyaalo badan oo garab socda baa jira oo shirar kala shirar technical ayaa garab socda. marka annaga shirka ka soo qaybgalkiisa waxa noo weheliyay inaan dadka faraha badan ee muslimka ah ee wadanka iskugu yimi shirkan inaan si gaar ah ula sheekaysano. inaan wadanada deeqaha bixiya ee lacagaha faraha badan la haysta inaan arrimaha Soomaaliya kala fadhiisano ayaa anaga taa noo dheerayd. anagu dadka la mid ma yihiin wadanka iyaga dhibaatada haysataana walow aan ka soo kabanayno wana sidoo hore ahayn wadanada kale ee xubnaha ka ah bankan waan ka duwanahay waan anagu ku dacwinay. si fiican waa la noo garowsaday aan isku soo noqono ayaa arrinoo taagan tahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wixii ka soo baxay. waa gartay marka waxyaabihii aad u timaadeen ilaa iyo xilligan maxaa la dhihi karaa waa u suurta galay ahmiyad intees la eg buu Soomaaliya u leeyahay shirkan. marka shirkan waa shir caadi ah oo caadi ahaan loo yimaado oo la dhageysto oo munaaqashaad caadi ah la sameeyo. laakiin annaga waxyaalaha noo gaarka ahaa waxaan damacnay banka madaxdiisa qaybaha kala duwan inaan la fadhiisano oo dhaqaale ka raadino. inaan la fadhiisano madaxda kale waaweyn ee dalkani ka mid yahay galafka wadanada galka ka mid yihiin Malaysia, Indonesia iyo Brunei ka mid yihiin dalalka lacagta haysta inaan iyagana gooni ula fadhiisano oo aan u soo bandhigno inay Soomaaliya u baahan tahay gacan weyn uga baahan tahay. ma jiraan mas'uuliyiin ka tirsan boqortooyada Sacuudiga oo badhigaaga oo aad la kulantay haddii ay jiraan maxaad Soomaaliya ahaan u gudbiseen oo ajanda ah? aan anagu doonaynay waxa weeye banka horumarinta islaamka Islamic Development Bank inuu noo sameeyo sanduuq yaan rabnaa. sanduuq la ay ku soo dhacdo inuu noo sameeyo rabnaa. waxaan rabnaa sanduuqa wadanada lacagta haysta muslimka ama carab ha noqdaan ama ha noqdaan adduunyada kale in lacag ku soo shubaan rabnaa. inaan anagu proposal keenaan rabnaa tayaysan oo tafaariiqdiisa leh oo koskiisa leh oo sida loo dhaqan gelinayo leh ayaan rabnaa. dhigayga Sacuudiga waan kala hadlay waa aqbalay. dhigayga Imaaraadka waan kala hadlay waa aqbalay. dhigayga Malawi Malaysia waan kala hadlay waa aqbalay. Indonesia Brunei intaba waan la hadlay iyo qaar kale. waxay markaan isla garanay madaxweynahana waan la hadlay. madaxweynaha baankana waan la hadlay. waxaan
waxaan isku ognahay waxa weeye annaga madaxa iyaga waxa ku jira waxa weeye inaan $1 billion account lanoo sameeyo yaa sanduuq $1 billion lanoo sameeyo oo wixii lagu sameyn lahaana aan soo qori doono soo noqonnay una sheegno waxyaalaha important ah waxa kamid ah 4 sano soo socda inaan dadka dawladda u shaqeeya la bixiyo muxuu ahayn mushaarooyinkooda لأن قفانة مشارسين هذا يكون شقي أما دبت هجوج أما جود هجوج يلا بحيو إذا كان يسكورتي سين لعتو لبيلا دقو سفاره هنا بربوسين إلا حبايو وزاره هنا الدمين دي بلوص ولا صو يا إلا دالين يريو شقدا لا دالين يريو دالين يرى سوق شو ذات كواوين إنت أصل سو شقيين هي إن pension لسيو العقل لسيو ولا نبتقليه ولا حبايو يعني وحيالا فرا بدن oo u baahan in dalkan wax laga qabto oo lacag u baahan ayaan isla soo qaadnay aanan ognahay baahanaha noocan oo kale inay dhigawleeyihiin waxay leeyihiin quwadda inay dadka iskugu yeedhaan yaa convening power waxa kaloo xaqiiqa ah oo annagu aan dareensinay waxa weeye in dalal kale oo caraba ilaa annagu carab baan nahay waxaasoo kale loo sameeyey laakiin annaga weligeed lanoo sameey فلسطين بلو سمي لبنان بلو سمي جوردن بلو سمي why not us باني دانو أنا محل نقول سمي لا يترى أنا جاب كليدني أنا جاب كليدني أنا محل نقول سمي ولا ويا بير مكان مك يا وكشقيننا كما سيحنتون وكشقيننا دبان وصون نقولنا نسكسون نقولنا نحل يسكوبين وكسر شقيننا إلى إيان كنت كجاد كنت واحد نقول سنة مركا إن ده أمان تشانو كان سومالي واحد كلا كتشانو أما إن الجروب كم ده هانو ده بيتنا دبعتين وحلاقة قطو ما يتري باتارا ما يتري يا وقرت وزير كمالية دولة الصومالية دكتور عبد الرحمن دعالي وكمون مهد علينا سيدو كلا واحد جرى الصومالية مدبدا ببربرسانيد دي مفر بدن الصومالية اللي يقول لي هاي جرى وزارة ده حل انت لك بس كسرت يا أصلي ده عفيته لها يشرر كلا شيء دوان نيروبي كدعية محل نقول شيء كرسا شركة نيروبي كدعية أنا قام قابلنا أنا جاي صندوق الدولي أدوك هي قام قابلنا IMF لا يرحض أنا وشرائين انتقى هذون كقيب قالوا الشرعي شرط بدنه كان كل شيء يبان يا كقيب قالوا تيجي رواي لكن ساعة كان كقيب قالي فيديو كونفرنس يا كقيب قالي شركة سي فولي وأنا وقيب قالي ساعة كنا ما ودي فديني وحا وضدا عن دوننا نكون عنه لدون كل عنه ووضو العجل اللي نقول ليه لنا قدافي لا قف نقول ليه قف بقوله أما وتسكبحين أما دي بتسكوها بيني الدوق حلوي قناة وحوي العقد هذا كريم ويدو ودن كنا نقرأ نقطة صلاة حبل جاء جد أيو حب دي بلوكو دعنا وجرته حبل جاء جد أيو وجرته أنا وحب كين لأن غير دافو هاي أنت اللي تقولنا كاسانا ساكا ودي يسيكو دعني عقبها مركز أرمها سي كسو وجان سومالي أرمها سي كو أدن دعفين تودا أنت اللي إجيهن رجد السواسدة رجدوا أدبوا في عنتاي إنه هذين يسكت الشنو عن قبان كرينا وحيالو أن أدوسي بعنين وحويا لعكتا كسوق شاء ودكا كاسوق شاء كردي وامد هو يسكت إلين كردينو يجونا وين عاونا يعني كردينو أشورا بدن كرنو سي عدان هو الأركيو لعجها كسوق له الله استعماله وحنا سمي كرين ما lacagta dadkii kaashkeed siinaysa dhaaf oo qof waliba ka aan furto waa wax la sameyn karo adduunku ma sameeyay waxaan sameyn kareynin ma aha dadka ku shaqeeya tiradiisa isla garta oo dadaan shaqaynin hawran way shaqeeyaan waa waxaan garan karno ciidankaaga iyo dadka waxa tirsanaadaan waxaan garan karno qofaad lacag siisay inuu ku shaqeeyo qasab bay tahay waxaan garan karno qofaad lacag siisay ayaanu iska tagin meel kale oo shaqo kala qabanin waxaan garan karno qofka shaqeeya laba meelood oo labadaba lacag ka qaata ayay jirin de waxyaalahaasi waa waxyaalo loo jeedo Soomaa waxyaalo cadaan weeyaan waxyaalahaas la leeyahay sameeyo kare laanay ma taastay waa sameeynaa baan nidi waan sameeynaa diilaayado dibata la atalina mar hadii laga dhaafana lacag fara badan oo ciida ka badan oo dalka lagu dhiso ayaad helaysaa oo biyaha lagu sameeyo
ودوينka lagu dhiso oo electricity gan marka muqdisho meelaha ugu qaalisan weeyaan light kan marka meelaha ugu qaalisan adduunka weey why because dad baa iska haysta alaabtii lagu sameeyay facilitieskii baa ayaa wanaagsanay waxa soo dhan waxaan ku finance gareynaa marka lacag kale oo deeqa oo wadanada aan keli karo waa gartay inagoo gabagabadii wareysigeena ku jirna waxa tahay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya muddo yar ayaad jagadan joogtaa ilaa ay xilligan maxaa la dhihi karaa ku qabsoomay inkastoo muddo yar aan ogahay adigoo joog muddo yar baan joogay runtii muddo yar baan joogay muddadaasna waa iska wax barasho waxaan jeclaan lahaa tan oo kale inaad weydiiso markaan 4-5 bilood joogo imika waxaan ku jiraa waxa weeyaan barashadii wasaaradda waxyaalaha aan doonayna inay qabsamaan waxa weeye waxay cashuurada dadka laga qaado inaan meesha ku dhacaysa aragno halkii tagaysana aragno meesha tagaysana meel la xisaabin karo oo dacad inay marto oo ay leexleexan waa suura gashay taas waxyaalaha dadka laga soo gurayo in la kordhiyo dadka maayade yani waxaan u jeedaa waxa weeye marka airport ko kale ama port ko kale waxyaalaha laga soo gurayo in si xaq loo soo guro oo qofna dhibaato loo geysan cidna wax dusha laga saarin wixii la soo gurana la isku yimaado process-kana la hagaajiyo wasaaradii wax soo qorata waxeeda hadii loo hayo markaaba la siiyo hadaan loo hayna markayba la yiraahdo lama hayo cadaan in lagu wada shaqeeyo ayaan doonayaan inay suuro gasho oo waxba qarsoonaanin cadaan in lagu wada shaqeeyo waxaan ka shaqeynaynaa waxa weeye in la aamino dawladda Soomaaliyeed la aamino amaana daro iyo aamin daro oo waxyaalaha halka ay gaarsiin weeyaan aamin daro lacag weli laana loo leeyahay mashruuc baa la idinsiinayaa NGO hebel baa loo dhiibayaa nood idinka ya soo madax jab ma soo qaran jab ma waxaan doonaynaa markaa inaan niraano okay cidda doonta ku aamino imka qolada banka waxaan sheegnay lacagtana siinaysan anaga lacag waxaan siinayna waxa dhisban kuna dhisaw ilaan ismaydhayno aan nadiifinayno oo nagu kalsoonaysaan ya qofku ugu kalsooni maxaad oran kartaa waan ka shaqeynaa taasan ka shaqeynaya markaa in la noo kalsoonaado oo dadka cashuurta bixinayana anaga nagu kalsoonaadaan markale oo ku mahadcelinaa kelmadaada ugu dambeysay bulshadaada ugu baaqi lahayd maxaa u soo jeedin lahayd guud ahaan ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sacuudiga oo aan la joogtina maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa waxa weeye dhibaato badan baynu soo gaadhay dadka Soomaaliyeed anigu shakhsiyan waxa qabaa inaan inagu isku geysanay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Prime Ministerka Xasan Cali Khayre intuba waxay noo sheegeen waxa weeye dadka Soomaaliyeed noo sheegeen inay dalka soo nooleynayaan in la soo nooleynayo amar baa nagu siiyay inaan wax wanaagsan sameeyno inaan daacad dalkan u noqono qof walba warqad u saxay oo anaga naga mid waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan inaan dalkeeni la soo noqono sharafteeni la soo noqono inaan iska bixino wax laynagu leeyahay inaan si nadiif ah ku socono inaan joojino iska daba wareega ya waxaan isku ognahay oo nadiif ah inaan ku wada socono ana kulliye saas naga go'antahay intaasna wada aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa waa wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isagu booqasho gaar ahaaneed ku jooga wadankan boqortooyada Sacuudi Arabia isagoona wareysi gaarka ah uu siiyay waan uga mahadcelinayaa wasiir aad baad u mahadsantahay oo kaga mahadcelinaa markale thank you inta barnaamijkan mid lamida daawadayaal aan dib ugu kulmi doono waa dhawaad qayskooda la sida ay nabadgelyo waad ku mahadsantihiin idinkuna